aragada waa noo ashbid kageena aqoonso horta warkaad waa ka soo horreeyay waana ku naqaan inkastoo aan ku arkin qorqor madaxweyne qorqor waa ku naqaan marka waa ku soo salaanta naga gudoon salaanta inaan gudoon ta ka rabna inta hada ka soo gudbo waxaan noo dheer hadiyad baa ku wadnaa loo bag hadiyad bay ku soo qaadeen kugu soo salaameen kugu socdaan inaan naga gudoonta hadiyadaas midna meeshaan taalla midna waxay jarjartay taagantay inaan naga gudootid nagu mataqaan sharaftid naga qabatid naga qaadid intaas baan warka uga dhawaaday gudoomiyaha iyo sheekha ana warka ka soo oo baxay inuu reer loo bogaana dadka waxaan ugu duceynaa diinta ilaahay baan ugu duceynaa wixii kala codoo aan heli karna waa ugu darnaa 14 iyo 100 todobadaas jaamac oo halkaas taala adan kugu salaamo inaa wahadiye naga gudooto meeshan xoolaha ku xiran adiga hadiye aan kugu keenay oo in martiqaad ciidankaada waxa cunto maada waayeen dad baan wada taade inaan ku martiqaadi arabna intaasaan anagu ku wadnaa warkuna waa naga leeyahay hay'adaha inaan naga gudoontid baahida iyo wax aan qabnana hadda waxa la tahay hadda noo taa waa noo diraa farka dhan taadin iyada subaxdii nooga dhiga tiraahid labadaba meesha aad waa noogu talisid ilaahay noogu taliyay naga baashi sheekhal loo bagay faqa Umar suldaankii noogu weynaa dumar hadlay nabadoonkina hadlay nooma harin waxaan kugu wareejinay jaamacadaas 7 jaamac weey waa diintu dadka haduu ku sharafo waa inuu cid walba waxay ku sharafowdo isku sharafayda sharaftaas baan kugu casuumnay codsigaas waxaan noo daba yeelanaa hal codsi bis intaas aan kugu casuumnay oo kale inaan maanta cawada nugu casuumta baan rabnaayo albaabka inta noo istaagto aan sooriyadii aan wadnana gacanta kugu galino wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum bismillah alhamdulillah salatu wassalaam ala rasuulillah gudoomiyaha xildhibaanka suldaanka salaadiinta kale iyo nabadoonnada iyo khiyaarta علماء الدين dhalinyarada dhammaan inta lagu joogo lagu yimid munaasabadan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaam kadib oo mahad celinaya beesh sida sharafta badan maxabada iyo walaalnimada leh hadiyada iyo deeqda la igu keenay la ii soo hadiyay aad iyo aad baan mahad celinaya waxaan ka cod daaranayaa hawl badan oo ku jiray darteed hadii aan ku talagal iyo diyaarsanaan aan la igu iman runtii beeshu dad culimo diin ah lagu yaqaan dacwada iyo diinta fidinteeda way waxay lagu qeyr badnaa ama ugu qiimo badnaa aakhiro iyo adduun na waa igu soo hadiyeeyeen oo xataa xoolo iyo hadda ka qaalisan waa idinka gudoomay Allah idin sharfo amiin hadiyadii ka qaalisanayn oo wax la isu hadiyeeyay ugu qiimo badnaadna waa idinka gudoomay midii maalka ahayd oo aad keenteenna waa idinka gudoomay xaajooyinkeena kale iyo adduunyadeena kale iyo hawlaheena kalena sida aad raalli ku tihiin ayaan yeelayaa haddii aad tiraahdaan hadda inaan galnana waqti waa isumaneedo waaba isu nimid oo ilaahay baa mahad maanteed iska leh noo qadaray inaan isu nimaadno oo kulankaan noo dhaco waa wada joognaa haddii aad tirahdaan waqti kalena u dhiganaynaana waa gelaynaa anoo mar labaad iyo mar saddexaad iin mahad celinaya adiyadii iyo deeqdii qiimaha badneed aan runtii ana ilaa weyn ka mahad celinaya diyaar baan idin ahay sida ku talisaan hadii hadda la gelayo hawlihii iyo kalimaadkan sidii lahayn iyo hadii dib loo gelayo oo waqti kale aan qabsanayno aad iyo aad